waxay dhahaan jacaylka dhabta ah ma daneeya dhalashada, fogaanta iyo midabka qofkaba. Jacaylka dhabta ah waa in la isla jiro waqtiga farxadda iyo kan murugada. Nasiib darro laakiin badanaa dadka waxay xiiseeyaan inay fiiriyaan xaaladaha dhaqaalaha qofka, shaqadiisa iyo muuqaalkiisa intay eegi lahaayeen ruuxda qofka iyo awoodda jacaylka. Maanta waxaan idin hayaa qiso jacayl oo dhab ah. Wuxuu yidhi in cabbaare haddii aan dhacdeed u jiifay oo aan hurdada ku sari waayey ayaan mar qura soo hinqaday oo aan soo fadhiistay. Aniga oo inta labada gacmood kor u taagay 10 faroodna isdhaafiyey oranaya kadibna qoorta jucsanaya. Waxa ay haya caajis baas oo aan garanayn halka uu iiga yimid. Waxaase u qaatay in dhafarkii habeenkaas aan ka qaaday ciyaar ka mid ahayd horyaalka Ingiriiska oo aan daawaday ay hurdo la'aan iyo caajiskaba iigu wacnayd. Goor sheegtada ayaan eegay mise waa 3:15 daqiiqo oo habeen. Waqtiga socod gaaban baa intaanoo ciishoonaya is-iri dib sariirta isugu tuuray. Intaa kadib waxaa ii xigay cod idhahaya Xamse ka kacmaam. Saakay hurdada waad ku daahday. Markaas baa anoo sacabka iskaga celinaya falaaraha arooriyaad soo kacay mise waa hooyaday Maryam. Hooyo baa igu tiri biri waxa baxaya Asad aroor hore iga kici Soomaadan i oran hooyo oroday kac. Waayahay maama baan inta iri hafka soo dhahay sariirtii. Haddaan saacada eegay waaba 6:15 daqiiqo. 15 daqiiqo baa ka hartay xilligii 6:17 daqiiqo oo aan ku ballansanayn inaan Asad u raaco garoonka diyaaradaha caalamiga ee Muqdisho oo maalinkaas uu ka dhoofay. Aniga oo aad u degdegaya baan gaarigayga Mercedes-ka dalaq ku soo dhaxay oo guriga ka soo baxay. Waxaan aniga oo xawaare ku socdo isku soo dhigay wadada dheer ee wadnaha, kadib dhinaca bidix ula leexday isgoyska Holwadaag. Waxaan fooda sii saaray dhinaca sayidka, dabadeedna midig iskula dhigay wadada Makaal Mukarrama. Aniga oo ku sii wajahan xaafadda Tarebiyaano oo Asad uu ku noolaa. Markii aan la leexday jidcadaha laga gala xaafadda baa mar qura indhahayga qabteen qof wadada bartankeeda tagay. Mise waaba gabar. Waxay ahayd qof aan dareemayay inay duruuf daashatay. Balse qurux dabiici ah Ilaahay ku manaystay haddii ay hesho qof dayactir ku sameeya. Micnaha dhaqaaleeya. Waxa ay lahayd midab biyaha dahabka sidooda ah. Joog dheer bay lahayd. Jirkeeda dhexda buu u yaraa, dhinacyada hore iyo hoosena u yara weynaa si qiyaasan. Waxaan ka samri waayay bushimaha aad u qurxoon oo aan dareemay. Waxa aad cajiib u ahaa indhaheeda burburan iyo sunniyaheeda bil dhalatay oo kale u qorna. Markii aan cabbaare saas u daawanayay baan bilaabay inaan hoonka u yeeriyo misana maba dhaqaaqayso. Haddana dhowr mar ayaan isku dayay ha sheegin nuuxsi ma lahan. Markaas baan inta gaariga ka degay qayla dhagaha kaga shubay anigoo oranaya adiga ma wadada baad iibsatay maxaad la dhex taagan tahay. Jawaab baan filayay aamusnaan bay igu kaalmaysay. Mar labaad baan qayliyay anigoo wejiga gacanta faraha uga riixaya misana dhahaya oo maxaad noo quursanaysaa maad nala hadashid oo wadada ka leexatid. Balse jawaabtii aan ka helay waxay noqotay ilma indhaheeda mar qura ka soo dareeray. Naxdin anigii aan firiir baan qaaday. Waxaan sheegana waan garawaayay. Ilbiriqsiye yar markii aan aamusnaabaa aniga oo hadalka gafgafaya cabsina ay iga muuqato waxaan iri abbaay iga raali noqo haddii aan wax qaldan ku dhahay ama tallaabo qaldan ku dhaqaaqay. Markaas bay iyada oo qarqaraysa cod naxariis leh oo wadnahayga gilgilay igu tiri Ilaahay indhaha kuuma siin inaad ku jeesjeesto. Anigana iima tirin qalad aan galay ee waa cibro qaadasho inaan wax arag oo aan meelaan u dhaqaaqa garanayn. Waad aragtaa markaas baad qayli dhagaha iiga jibinaysa. Markii ay intaas afkeeda kasii dhammaanayeen aniga waxaan lumiyay hadalkii. Naxdintii ii haysay 1000 jeer bay igu jibaarantay. Wax aan sameeyo baan garan waayay. Waxay igu noqotay arrin aan filayn iyo aan firiir. Mar waxaan ku dhaygagay quruxdeeda, marna waxaan qalbiga iska dhahay alla adoo kale sidaan kuuma wanaagsanayn. Waxba yaanan hadalkeedin ku daalinin daqiiqada markii aan xaaladaas ku sugnaabaan inta safaleetiga jeebkayga ku jiray ka soo bixiyay baan isku dayay inaan ilinta ka tirtiro aniga oo dhahaya waan ku baryaa iga raali noqo. Sida uu xaalkaagu yahay iyo sidaan malaynayay waa laba kala fog. Balse mar allaala markii aan isheeda midig ku bilaabay inaan ilinta ka tirabay inta gacantayda iska qaaday iska tuurtay. Abaayo ma qaladka labaan galay. Haddana baan ku iri maya qalad maadan galin ayay iigu jawaabtay
oo maxaad waayahey gacantayda iskaga filiqday baan haddana weydiiyey. Intaa kadib iyada oo aad moodo inay waxoogaa degtay islamarkaasna gacanta ilinta iskaga tiraysa igu tiri, waxaan diidayaa inaan galo riya maalmeed beena. Naxariistan oo kale weligay maanan arag, mana doonayo inaan guda galo wax ku kooban ilbiriqsiyo. Erayadaasi waxa ay noqdeen kuwa aan ka calool xumaaday. Waxa ay ii sawireen dhibka iyo nolosha liidata ee gabadha. Si kastaba aniga oo isku dayaya inaan qalbiga u qaboojiyo kana saaraya cuqdada baan ku iri, maya saasa oran, wax walba oo ku haysta way qornaayeen. Waxa imaan doonaan way qoran yihiin, iska saar cuqdada. Naxariistan iyo mid ka badanba waad heli kartaa ee qalbiga khayr u sheeg. Waad mahadsan tahay ayay si kooban igu tiri. Intaa kadib waxaan bilaabay inaan furo isbarasho aniga iyo iyada ah. Aniga oo hadalka ku bilaabaya barasho wanaagsan abaayo. Magacayga waa Xamza, waxaan deganahay xaafadda Geed Jacayl ee degmada Wardhiigle. Iyadana ay ku jawaabtay wanaagsan oo wacan. Waxa la yiraahdaa Esther, waxaan ku noolahay isla xaafadan ayay iigu jawaabtay. Markii ay intaasina dhex martay baan waxoogaa wadada gees uga leexanay. Si wanaagsan baan u sheekaysanay runtii. Waxayna ii sheegtay in gabar ay daris yihiin ay meel u wada socdeen ay meesha uga tagtay, iyada oo dib ugu laabatay gurigooda ay wax ku soo ilowday. Esther waxa kale oo ay ii tilmaamtay gurigooda oo halkaas aan ku wada sheekaysanaynay aan sidaa uga fogay. Waxaan jeclaystay inaan la ballamo waqti kale si aan wax uga su'aalo xaaladeeda nololeed. Wayna iga ogolaatay, inkastoo ay u muuqatay mid aanan aaminsanayn ballantayda iyo inaan ka dhabayn karo. Waxa ay la ahayd arrin aan iskaga kaftamayo, balse aniga dhab ayay iga ahayd. Intaas haddii ay sheeko inoo marayso ayaa gabadhii wadada uga tagtay ay timid, aniguna waan macsalaameeyey kana tegay. Waxaan sii aaday gurigii Asad oo aan runtii aad uga daahay. Waxaan la kulmay saaxiibkay oo markaa albaabka ka soo baxay. Waxba hadal waqti iskagama luminin. Horay baan u sii aadnay garoonka diyaaradaha caalamiga ee Muqdisho, halkaasi uu Asad u dhoofayay Mareykanka. Abaar 8 barqanimo ayaan soo laabtay markii aan saaxiibkay ku hubsaday diyaaradda. Markii aan gurigayga imid ayaan bilaabay inaan mar kale isdiyaariyo, anigoo doonaya inaan aado wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta oo aan ka shaqayn jiray si aan u soo guto shaqadeydii maalinkaas. Waan 4 saac oo hore fasax ka lahaa. Maalinkaas waxa uu ahaa maalin baal dahaba ka galay taariikhdayda. Habeenkii markii aan sariirtayda dul imid oo aan gama islaha ha sheegin, waxaan bilaabay inaan ka fekero dhacdadii maanta iyo kulankii Esther. Waxa ay noqotay arrin qalbigayga aan ka saari waayey. Waxa qalbigayga ku soo noqnoqonay ayaa waxa ay ahaayeen quruxda Rabbi uu ku manaystay gabadha iyo indho la'aanta. Waxaan isiri haddii indhaheeda u caafimaad qabi lahaayeen, maxaa la isku dili lahaa? Waxaan kale oo aan isweydiiyey suurtagalnimada ah in indhaheeda la daweyn karo. Hase ahaatee su'aashaasi waxaan u dhigtay kulanka aan ku ballansannahay aniga iyo iyada. Habeenkaas waaga wuxuu iigu baryay ka fekerka Esther iyo marxaladaha nololeed ee ay ku sugan tahay. Waxaan dareemay in qalbigayga ay ku soo noqnoqonayeen erayadiina dhex maray, mana garan karin waxa ugu wacan oo ay sidaasi saamaynta igu yeelatay durba. Laakiin waxaan ogaa kaliya in habeenkaas ay qalbigayga ka xanibtay dhaqdhaqaaqyadii kale oo iyada ka fekerkeeda aan waqti badan ku lumay. Maalmo ayaa ka soo wareegay la kulankaygii Esther. Waxaana maalmahaas wax weyn iska bedelay dabcigayga oo feker baan ka bixi waayey. Waxaa iga yaabay aabahay Xaaji Maxamed, hooyaday Maryan iyo labadayda ayeeyo ee hooyay aaba kala dhalay, iyo walaalkay Anas, kuwaasoo la yaabanaa isbedelkii ugu dhacay. Si kastaba ha ahaatee waqtigii ayaa gurmay, waxaana la gaaray habeen Talaado ah 7 fiidnimo oo gow ah. Waa xilligii aan ku madalsanaa guriga Esther. Inta aan ishabeeyey baan gaarigayga ku dhacay, waxaana baaray gurigii Esther. Runtii markii aan tegay guriga ayaan daymo u galay guriga. Waxa uu ka turjumayay nolosha hooseysa ee Esther. Eegmadiisa waqti badan isagama aan lumin. Albaabka ayaan garaacay, waxaana iga furay wiil yar oo Esther la dhashay. Ma joogtaa Esther baan ku iri. Markaasuu i weydiiyey, ma Xamza baa adiga? Haa baan ku iri. Isna soo dhaaf buu igu jawaabay. Waxaa la ii geliyey qol 2 joodari ay dhex taallo oo jiingad ka samaysna, halkaasi oo ay igu sugaysay Esther. Markii aan galay baan kula kaftamay, waan ku salaamay quruxleyda. Markaas bay iyana oo xishoonaysa wejiga hoos aadinaysana ii dhoola cadaynaysa igu jawaabtay, ha waan ka qaaday abow. Salaan iyo kaftan kadib waxaa bilaabatay sheeko iska caadi ah. Waxay inta badan i weydiinaysay iguna celcelinaysay
sababta aan u go'aansaday inaan ula ballamo ulana kulmo isla markaasna aan ula xiriirayo. Anna waxaan u sheegay inay tahay wax iska caadi ah, barashada aan iyada bartayna ay tahay mid la mid ah tan aan dadka kala barto. Sheekooyinkaas oo dhan aniga dareen uma hayn, waxaana ka fikirayay su'aal qalbigayga ku taagneed sida aan u weydiin lahaa Esther. Waxaana aad uga cabsi qabay in su'aashaas ay qalbiga ka dhaawici doonto ama kharibi karto kulankan sheekadii inoo socotayna ay istaagi karto. Waxay ahaataba haddaan waxoogaa isceliyay ayaan ugu dambayntii go'aan nafsadeed ku gaaray inaan weydiiyo. Waxaana ku idhi, xaqiiqdii Esther waxaa tahay gabar aad u wanaagsan, laakiin waxaan rabaa inaan markii aan hadalka intaas marinaya ayay iga soo dhex gashay iyada oo qoslaysa ina dhahaysa, aniga ma wanaagsani, qof ii muujinaya inaan wanaagsanahay adiga baan ka arkaa, mana garanayo waxa jira, indha la'aanta ayaa la igu nacay baan filaa, hahaha. Runtii erayadaas qalbigayga ayay dhaawaceen, ilin ayaana indhahayga ku soo istaagtay aniga oo isku dayay inaan u muujiyo inay tahay weli qof lagu xisaabtami karo oo wanaagsan. Maya saasa oran, miyaadan maqal oraah dhahaysa qofka wanaagsan dadka wuu ka dhex muuqdaa xitaa haddii uu dhar duuga wato. Marka wanaagga waa qalbiga ee maahan muuqaalka hore ee niyadaada wanaaji. Waxaan kuu ballan qaadayaa inaan weligay garabkaaga ahaan doono. Haddii aan intaas ku qalbi qaboojiyay ayaan u soo laabtay su'aashaydii qalbigayga ku taagneed. Waxaan weydiiyey sidee ayaad ku indha beeshay, goorma ayaad si indha beeshay? Runtii jawaabta su'aashan aad ayay ugu adkaatay Esther inay si fudud uga jawaabto. Anna waxaan filayay bay ahayd lama aanan yaabin. Waxaan siiyey fursad ay ku hadasho. Cabaar waan u aamusay. Markii ay waxoogaa aamusneed ayay iyada oo madaxa luxaysa diidmana muujinaysa igu tiri, maya Xamza, waa ku baryaayay sheekadaas inaan guda gala ma raba ee iga dhaaf. Waa qiso xanuun badan runtii. Kama aanan yeeline inaad ii sheegto mooyaane gaw iyo gash male baan ku idhi. Dood dheer kadib waxaan ku qasbay inay sheekadaasi igu guda gasho. Iyada waxoogaa way i qadarinaysay, way iga ogolaatay. Intaa kadib ayaan inta fadhiga qaabaystay, labada sacabna labadayda dhaban ku qabsaday aniga oo isku diyaarinaya dhageysiga sheekadeeda. Markaasna ku idhi, haye ii bilowhe. Inta ay igu hadal gaabisay ayay sheekada daaha ka rogtay iyada oo ku bilaabaysa, aabahay waxa uu hooyaday guursaday isaga oo aan waxba haysan laakiin aad u niyad wanaagsan. Hooyo iyo aabba waxay isku guursadeen jacayl. Si kastaba aniga ayaa nasiib u yeeshay inaan noqdo midhahoodii ugu horreeyay ee jacaylkooda ka dhashay. Inkasta oo laba kale ay iga daba mareen. Markii aan dhashay, aabba jaamac dheere dhaqaatiirta ayaa uga digay in indhahayga aysan wanaagsanayn, laakiin digniintaas aabba wuu iska dhaga mariyay, wuuna fududaystay. Si kastaba markii aan noqday 6 jir ayaa la igu arkay indha xanuun. Subaxii markaan kaco waxaan soo toosi jiray indhahayga oo isku dhagan, mana aysan kala foqayn ilaa biyo la ii kululeeyo oo la iga mayro. Cadceedda iyo iftiinka way i dhibi jireen oo maanan u adkaysan karin. Indhahayga waxa ay u guduudnaayeen sida suugada oo kale. Marxaladaas waxaan ku sugnaa ilaa aan ka gaara 12 jir. Intaana aabahay waa uu iga fikiri jiray si uu maalin u arko indhahayga oo caafimaad qaba, balse awood dhaqaale ayaa dadaaladiisa oo dhan xanibtay. Markii ay intaas hadalka ii marinaysay ayaa mar qura indhaheeda ay ilin ku soo hoobatay, oohin ayayna afka furatay. Xaaladaas aniga way i saamaysay oo waan la ilmay, balse intaan safaleetiga jeebka kala baxay ayaan ilinta kaga tiray. Waxa aad ii farxad geliyay in markan aysan gacanteeda iskaga qaban. Intaa kadib ayaan ku idhi, Esther caloosha xir, waa laga gudbayaa waxaana ee ii wad sheekada. Waayahay inta ay tiri ayay halkeedii kasii amba qaaday ayada oo dhahaysa, markii aan 12 sano gaaray ayaan bilaabay inaan habeenkii wixii ka bilowdo salaada maqrib kadib aan aragga lumiyo. Xaaladaas ayaana ku sugnaa ilaa aan ka gaaray 15 jirkayga. Markaas oo ugu dambayn aan araggeygii waayay xitaa maalintii. Waxaanse ku faraxsanahay markii aan saas noqonayay ay ku soo beegantay dhowr bil kadib markii aan dhameeyay dugsiga sare. Taasi aabahay ugu adkaysan waayay. Haddii muddo 1 sano aan sidaa ku joogay ayaa 16 jirkaygii waxa uu aabba raadiyay dhaqaatiir, laakiin waxaa loo sheegay inuu jiro hal dhakhtar oo sanadkii mar yimaada oo nooca qalliin aan u baahanahay keligiis takhasus ku haysta, qarash badanna raba. Markaa kadib aabahay waxa uu go'aan ku gaaray inuu iibiyo
gurigan aan hadda leenahay si qarashka qaliinka uu bixiyo. balse nasiib daro markii go'aankaas uu gaaray kadib ayaa waxaa qabtay xanuun degdeg ah kaasoo uu u geeriyooday. Anna sidaas baan ilaa hadda oo 21 jir ahay ku indhala'ahay. daawada la soco qaybta labaad ee sheekadeena jacaylka. nagula wadaag wixii fikirkaaga qaybta hoose waad ku mahadsantahay la socoshadaada.